السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركلة سود وذا أدي هذا وما تسنتهين ما أنت وأربعة وأنا شني طبعا بيشة تضبط جولاي سنة كلا بدأ كون يلحية لباتنك مقال كان ما أنت وحنا ربعنا ندي كل وذا قومت كم إذا الصومالي دي كويد إسلام مسق ماسقي فيدين أو فيوجر قبل كمينيسوتا أو دنبيجي سقرتي هذا بإمس الله عجاه يدولد أسوء علينا يا إمس أيانا لجو حكومي كرا وان إذا لو وذا جيا calanka cusub ee gobolka Minnesota oo hadda 2 sano jira ayaa muran weyn uu ka taagan yahay cunsuriyiinta waxay leeyihiin calankii Soomaaliya ayuuba u eg yahay qaar kamid ah degmooyinka gobolka Minnesota kuwa intay iska dajiyeen calanka cusub ayay kii hore saarteen kuwana wali muran ayaa ka taagan oo kii horena waa la dajiyay kan cusubna waa la dajiyay oo hadda waa calan la'aan arintaasina sidoo kale waan idin la wadaagaya maxay tahay fayraska ka dhashay bacteria qaar kamid ah saladka ama qudaarta la cuno oo 34 gobol ee gobolada Mareykanka ah saameeyay kaasi oo shuban daran ku sababaya qofku markuu qudaartaasi cuno qudaarta laga helay maxay tahay gobolada ilaa hadda uu gaaray gobolada uu ka soo bilaabmay iyo sidoo kalena inta qof oo isbitaal loo dhigay iyo inta kiis oo guud ahaan wadanka laga helayna waan idin la wadaagaya calaamadihiisa maxay yihiin maxaase lagu la talinaya dadka marka qudaarta ay soo iibsadaan in ay sameeyaan ay tahayna sidoo kale waan idin la wadaagaya siyaasadihii ciidamada ICE dadka marka gawaarida ay saaran yihiin ay qaban jireen oo hadda wax laga bedelay isla markaana si ku meel gaar ah loo joojiyay ciidamada ICE in dadka gawaarida saaran aysan qaban kadib markii toddobaadkii la soo dhaafay ilaa iyo 3 qof gacanta ciidamada ICE ay ku geeriyoodeen iyo sidoo kalena madaxweyne Trump oo isagu u hanjabay Iran toddobaadka soo socda hadii aysan miiska wada hadalka ku soo laaban Iran oo sidoo kale duqeysay saldhigyo waaweyn oo Mareykanku uu ku leeyahay Kuwait iyo Bahrain iyo Congress-ka oo miisaaniyad dheeri ah ka hor istaagay wasaaradda gaashaandhigana sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaad ku bilaabo Cabdirashiid Biixi Dool oo kamid ah dadkii ku eedeysnaa kiiskii Feeding Our Future isla markaana ku eedeysan inuu qaatay lacag 1.1 milyan oo dollar ah ayaa isniintii dambigiisa qirtay Cabdirashiid waxa uu mutaysan karaa 3 sano oo xabsi ah isla markaana waliba dhaqdhaqaaqiisa lala soconayo laga yaabo in qaar kamid ah uu banaanka ku qaato iyo sidoo kale in uu bixiyo lacag gaaraysa ilaa iyo 250,000 oo dollar oo ganaaxa amaba sidoo kale waxa uu mutaysan karaa waxa la leeyahay xabsi ilaa 20 sano ah lacagta ganaaxa uu mutaysan karana waxa dacwadoogayaashu ay soo jeedinayaan Cabdirashiid in lagu xukumo ay dalbanayaan in 33 bilood ilaa 41 bilood oo 3 sano ilaa iyo 4 sano inta u dhaxaysa lagu xukumo isla markaana sidoo kale uu bixiyo lacag ganaaxa oo u dhaxaysa 15,000 oo dollar ilaa iyo 150,000 oo dollar maadaama horay wax dambiya uusan u soo gelin Cabdirashiid waxa lagu eedeynaya Cabdirashiid in uu Feeding Our Future uu dhahayay waxaan quudinaya caruur gaaraysa ilaa iyo 40,000 toddobaadkii intii u dhaxaysay bishii March ilaa iyo bishii December ee sanadkii 2021 waxaana sidoo kale lagu helay in isagu email uu isku diray 1 December ee sanadkii 2021 uu sheegay caruur magacyo aan jirin inta uu qortay in isagu xitaa emailkaasi uu isku diray marka Cabdirashiid waxa sidoo kale uu ogolaaday inuu dawladda u soo celiyo lacag gaaraysa 356,000 oo dollar 514 isla markaana hanti ama guri uu ku lahaa Pelican Rapidsna dawladda ayaa kala wareegaysa marka Cabdirashiid oo ah qofkii 79aad ee dacwada lagu soo ogowalo meelaha qaar ay leeyihiin waa qofkii 78aad hadda dambigiisa ayuu qirtay isla markaana sidoo kalena waxa lagu eedeynaya lacag 1.1 milyan oo dollar xilliga la xukumayana garsooraha ayaa soo sheegi doona arinta Cabdirashiid hadii halkaasi aan kaga gudbo waxa muran weyn uu ka taagan yahay calanka cusub ee gobolka Minnesota 2 sano ayuu jiraa calankan cusub calankii hore waxa la dejiyay 11 bishii May ee sanadkii 2024 marka calankan cusub oo aragtaan ayaa waxa la saaray oo xarumaha maamulka gobolka Minnesota laga taagay 11 bishii May ee sanadkii 2024 calankii hore in muddo ayuu soo jiray 1957 ayaa calankaasi la sameeyay inkastoo wax laga bedelay sanadkii 1983 laakiin markii aqalka baarlamaanka aqlabiyadiisa ay lahaayeen xisbiga dimuqraadiga sanadkii 2023 ayaa waxa ay sameeyeen guddi ay ugu magac dareen guddiga calanka guddigaasi ayaa waxa uu dadka degan gobolka Minnesota u weydiistay in naqshada calan
cusub oo gobolka Minnesota uu yeesho ay soo dhisaan gareeyaan ama ay soo qaabeeyaan waxaana sidoo kale la soo gudbiyay ilaa iyo 20,000 oo design oo kala duwan oo calan gobolka Minnesota oo yeesho ah iyadoo 20,000 oo commentiyo dadkaasi ay soo bixiyeen marka guddigaasi loo xil saaray calan cusub oo gobolka Minnesota uu yeesho inay soo saaraan waxay markii dambe ay isku soo haray ilaa iyo 6 calan oo laga doortay calankan hadda 11 bishii May sanadkii 2024 uu gobolka Minnesota uu yeeshay marka calankan si ayuu calanka Soomaaliya ugu egyahay hadii aad aragtaan xidig ayuu leeyahay inkastoo xidigtaasi geesaheeda oo san shan ahayn laakiin qaybta dambe waa dark blue qaybta horena sidoo kalena blue ayuu ka yahay oo biyaha gobolka Minnesota matalaya maadaama 10,000 oo lake iyo wabiyaal kala duwan gobolka Minnesota uu leeyahay laakiin waxa la yiri calankii Soomaaliya ayuu egyahay muran weyn ayaa ka taagan marka qaar kamid ah degmooyinka gobolka Minnesota dawladaha hoose dadkii cabashooyin ayay soo gudbiyeen waxaan ognahay degmo kasta inay leedahay xubnaheeda dawladda hoose haddii cabasho ay jirtana dadka deegaanku waa ay yimaadaan xubnaha guddiga dawladda hoose ayay la kulmaan halkaasi ayaana wixii fikrada ah la isku weydaarsadaa marka hadda degmooyinka dejiye calanka cusub ee gobolka Minnesota waxay kala yihiin Evergrove Heights Champlain calankii horena waa la dejiyay kan cusubna waa la dejiyay dadka deegaanka midna kii hore ay diidan yihiin midna kan cusub ay diidan yihiin sidoo kale calankii hore degmooyinka laga taagay hadda waxa kamid ah oo midka cusub laga dejiyay Evergrove Heights ayaa kamid ah Zumbrota ayaa kamid ah Plainview ayaa kamid ah iyo Elk River dhamaanba degmooyinkaasi calankii hore ayaa ka taagan laakiin Champlain kii horena waa laga dejiyay kan cusubna waa laga dejiyay dadka degan ayaa qaarna waxay diidan yihiin kii hore qaarna kuwa cusub ayay diidan yihiin marka qaar kamid ah dadka kuwa cunsuriyiinta ah waxa ay leeyihiin waa in calan dadka ay u codeeyaan doorashada marka la gaaro waa in dhowr design la soo bandhigo dadkuna ay u codeeyaan maahan inuu guddi u codeeyo hadda ninkan oo ka tirsan xubnaha dawladda hoose ee Evergrove Heights ayaa waxa uu leeyahay dadka noo imaanaya waxa ay leeyihiin calankii Soomaaliya ayuu bashaabahaba hadda xitaa 1 July Soomaalida Minnesota markay u dabaaldegayeen xilligii xorriyadda koonfurta Soomaaliya ee qaadatay waxa la dhahayay calankii gobolka Minnesota inta la dejiyay ayaa calankii Soomaaliya uu lahaaba la saaray bal ninkan waxa uu leeyahay arag dadka noo imaanaya waxay leeyihiin calankii Soomaaliya ayuu u egyahay several people that came to speak at our city hall compared it to the Somali flag and that was a very big issue of why they dislike dhinaca kale bacteria qatar ah ayaa gobolada Mareykanka ku sii faafaysa bacteriyadan waxa la yiraahdaa Cyclosporiasis waxa ayna ka dhalataa biyaha ama cuntada hadda waxa ay ku sii faafaysaa ilaa iyo 34 gobol oo gobolada Mareykanka gobolada ay ka bilaabatayna waxa kamid ah bacteriyadan Michigan Ohio West Virginia iyo waliba Kentucky waxa la leeyahay qaar kamid ah saladka la cuno ama qudaarta la cuno ayaa ay bacteriyadan ay ka dhalanaysaa shuban daran ayayna leedahay oo qofka caloosha intay xanuunto xitaa musqusha uusan ka soo bixi karin marka 34 gobol oo bacteriyadan hadda ay ku faaftay waxay kala yihiin Alaska California Utah Colorado Nebraska Kansas Texas Minnesota Iowa Arkansas Louisiana Wisconsin Illinois Indiana Tennessee Michigan Ohio Kentucky Georgia Florida West Virginia North Carolina Pennsylvania Virginia New York Connecticut New Hampshire iyo sidoo kalena gobolada kale oo ay kamid yihiin Massachusetts Rhode Island New Jersey iyo waliba Maryland waa hadda gobolada kiisaska ugu badan laga helay waxa kamid ah gobolka Michigan oo kale gobolkaasi kiisaska laga helay waxay gaarayaan 2644 qof isbitaal loo dhigay Ohio ayaa ku soo xigta oo 361 laga helay 46 qofna isbitaalka loo dhigay Illinois iyo Florida 100 ayaa laga helay Californiana waxa laga helay 141 qofna isbitaal ayaa loo dhigay marka qof u dhintayna ma jiro marka bacteriyadan waxa loo maleynayaa inay ka dhalatay spinachka ama ladaska waxyaabahan saladka oo la soo gato marka kuwa bacaysan ha soo gadanin ayaa la leeyahay marka aad soo gadato midka weyn oo qolfaha is saaran leh kuwa u horeeya iska fiiq iskana tuur si fiicanna isaga dhaq haddii shuban daran aad isku aragtana dhakhtar la xiriir marka waxa la leeyahay calool xanuun sidoo kale waxyaabaha
qofka calaamadaha uu dareemi karana waxaa ka mid ah marka uu cuntadan cuno ama biyaha uu cababa toddobaad kadib ama maalmo 2 ilaa 4 maalmood wixii ka dambeeya ayaa calool xanuunka iyo shubanka uu isku arkaya marka qudaarta loo malaynayo in bakteeriyadan laga helayna waxaa ka mid ah salad oo mixed ka midka isku qasan oo bacaha ku jira iyo sidoo kale lettuce ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah blackberry raspberry iyo blueberryna waa ka mid yihiin marka si fiican isaga dhaq ayaa lagu leeyahay hadda xitaa Taco Bell maqaaxidaas fast foodka qaar ka mid ah cuntooyinkoodii meesha waa ay ka saareen maxaa yeelay waxaa loo malaynayaa in ay iyagu ay arintaasi ay ku lug leeyihiin sidoo kalena waxaa jirta in waxyaabaha haddii aad isku aragto calool xanuun daran iyo sidoo kale inaad cunto cuni karin shuban daran inaad daalan tahay madax xanuun iyo sidoo kale inaad matagayso qandho ay ku hayso in sidii hargab oo kale lagu hayo waxyaabahaas oo dir haddaad isku aragto waxaa la leeyahay bakteeriyadaasi in ay kugu dhacday ayaa loo malaynayaa marka waa inaad dhakhtar aad la xiriirtaa dhinaca kalena waxaan ognahay in ciidamada ICE maalmihii la soo dhaafay dad fara badan ay dilayeen arintaasina ay la xiriirto dadka gawaarida saaran markay istaajiyaan waxa ugu dambeysay hadda shalay San Agustin Florida in gas station ciidamada ICE 4 qof oo sharcilaan inay yihiin loo malaynayo ay arkeen kadibna ay ka carareen wada highway isagoo mid kamid ah oo goynaynin ilaa hadda magaciisa wadanka uu ka yimidna aan la sheegin iyo sidoo kale heerkiisa immigration kiintu ahaa in gaari taraaga uu jiiray isla markaana isla goobtii uu ku dhintay shalay marka maamulka Trump waxay sheegeen inay wax ka bedelayaan siyaasadoodii dhinaca traffic stobyada oo qof gaari saaran hadii qof booliis oo aan u tababarnayn in la xiro qofkaasi uusan la socon in aysan istaaji karin si ku meel gaar ah siyaasadaasi ay meesha ay uga saareen waxaana sidoo kale madaxweyne Trump uu sheegay xitaa inuu diidan yahay in siyaasadaasi la joojiyo laakiin Tom Homan oo madaxweyne Trump uu xil saaran arrimaha immigrationka iyo xuduudda ayaa waxa uu sheegay in siyaasad la bedelo aysan ahayn laakiin ay tahay in si ku meel gaar ah arrintan loo hakiyay waxa uu xaqiijiyay in dib loo soo celin doono haddaba waa kan isagoo ka hadlaya Tom Homan arrintaas It's not a policy change, it's a temporary pause. I'm confident they're going to get back to their policy of vehicle stops, but they're doing, what they believe is a necessary short-term pause just to look at it and make sure everything's good. dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa hanjabaad kulul waxa uu u jeediyay dawladda Iran waxa uu yiri habeenadii u dambeeyay si aad ah ayaan u duqeynaynay laakiin waxa uu yiri haddii aysan miiska wada hadalka ku soo laaban toddobaadka soo socda waxaan duqeyn doonaa goobahooda korontada iyo waliba buundooyinka oo aan burburin doono isla markaana dhulka aan la sami doono bal madaxweyne Trump oo hanjabaadaasi jeedinayay wax yar ee la daawada But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. dhinaca kale Congress-ka ayaa shalay waxa uu yeereen mas'uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga ee Batanganka dhinaca dhaqaalaha u qaabilsan maxaa yeelay waxa ay doonayaan inay ogaadaan dagaalkan Mareykanku Iran uu kula jiro lacagta ku baxday ilaa ay haddana xog rasmi ah nala kama siin ay leeyihiin marka waxa ay dalbatay wasaaradda gaashaandhiggu ilaa iyo 1 trilyan oo lacag dheeraad ah laakiin aqalka sanadku waa ay diideen 50 xubnood ayaa diiday 46na sidoo kalena waa ay ogolaadeen oo xubno Republican ayaa dimuqraadiyiinta ku raacay hadda waxa la leeyahay 4 bilood oo dagaalka socday 80 bilyan ilaa iyo 100 bilyan ayaa waxay ku baxday dagaalkan Mareykanku uu kula jiro Iran marka Congress-ku ay ka soo horjeesteen maxaa yeelay waxay yiraahdeen lacagta ilaa hadda dagaalkan ku baxday ayaanan ba xog rasmi ah ka hayn waa kan mid kamid ah senatarada oo la yiraahdo Angus Keene oo mail laga soo doorta oo dhahayay maxaa ilaa hadda wasaaradda gaashaandhiggu ay noogu sheegi laadahay dagaalkan inta lacag oo ku baxday I think it's very frustrating to the American people that we can't get a straight answer on what this war is costing. dhinaca kalena dawladda Iran waxay sheegtay inay burburisay 2 saldhig oo waaweyn oo Mareykanku ku kala lahaa Kuwait iyo Bahrain waxay sheegtay in xaruntii ugu weyneed ee logistiga ee Mareykanku ay ku lahaayeen Mina Abdallah oo ku taala Kuwait in gabi ahaanba ay burburiyeen sida ciidamada Iran ay sheegeen oo ay dab qabadsiiyeen gabi ahaanna ay gubatay sidoo kalena waxay sheegeen xarunta laga kontrolo oo looga taliyo saldhiga shanaad isla markaana ku taala Bahrain gabi ahaanba in ay duqeeyeen oo ay burburiyeen Iran baarlamaankeedana 135 maalmood kadib ayuu dib u soo laabtay
waxaana ugu dambeysay inay kalfadhi yeeshaan oo ay fariistaan 28 February markii dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan waxaana soo xaadiray xubno gaaraya ilaa iyo 255 xubnood waxayna ka doodeen sida loo xaqiijin karo in marinka Hormuz uu noqdo mid ammaan ah isla markaana horumar joogto ah sameeya iyadoo sidoo kalena sharciyada uu ku shaqeyn doono baarlamaanka Iiraan ay meel mariyeen marka baarlamaanka Iiraanna dib ayuu u soo laabtay 135 maalmood kadib aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo